بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أحبائي في الله، dowradan barakaysan ee la magac baxday alistiqaama ee lagu qabtay masjidkan daarusalaam ee caasimadda waddanka ingiriiska london. allah subxaanaه wa tacaala waxaan oga baryayaa dadka soo xaadiray sheekh cabdiqaadir oo ah imaamkii iyo khatiibkii masjidkan oo soo diyaariyey iyo idaaradee ka kooban rag iyo dumarba. ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu barakeeyo ayaan ilaahay u weydiinaya subxaanaه wa tacaala. runtii mowduucani waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah. alistiqaama waa diinta oo dhan weeye, waa wixii ambiyada lala soo diray ridwaan ullahi tacaala calayhim ajmaciin. walidaalika istiqaamada iyo toosnaanta waxaa ka mid ah, waan dhegeysanayay sheekha muxaadaradiisii. xaqiiqatan sheekhii igu horeeyey sheekh cusmaan, doctor cuthmaan, muxaadaro aad iyo aad u qiimo badan oo qayima xaqiiqa ayuu nagala hadlay. waxaan isleehay tani waxay dhammaystir u noqon doontaa haddii aan la yidhahdo muxaadaradii ka horeysay. carabkeenna inaan toosinno waa istiqaamo iyo toosnaan, waana diin. inaan carabkeenna toosinno waxaan dhihi karnaa waa cudur ay culummadu ku magacaabeen, waa maradun cudaal. xadiidka dadka cilmiga la yidhaahdo cilmi lmustalaxa ee loo kaalmaysto axaadiidta dadka bartay baa yaqaane. xadiidka sanadkiisu hadday laba ninoo isku xigta ay ka maqan yihiin, ama uu mid walba meelba hadduu doono ha ka maqnaadee, laakiin labadaba u daa, laba nin oo isku xigta hadday ka maqan yihiin waxay ku magacaabaan mataqaanaa xadiidkaas waa xadiid maxay? cudur adag ayaa galay. marka daa lcudaal, marka waa marad aad iyo aad u adag, waana khatar xaqiiqa kuna faaftay dadka muslimiinta ah. ay aad iyo aad weliba u yar tahay cid cudurkaa ka nabad gashay, ilaa man raxima rabu lcibaad, ilaa ciddii ilaahay u naxariistay mooyeen subxaana wa tacaala. carabka oo la ilaaliyo waa waxyaabaha shareecadeennu ay aad iyo aad u ammaantay, oo ay kaga soocan tahay diimaha kale. maxaa yeeley mujtamaca muslimka ihi wuxuu ku dhisan yahay mujtamac mawadda iyo raxma iyo isu soo dhowaansho iyo isgarabsi iyo tacaawun iyo isqadarin labada dhinac ka imaanaysa ayuu mujtamacu ku dhisan yahay. ma dhici kartaa marka mujtamacu inuu isjeclaado, mujtamac isxamanaya? ma dhici kartaa inuu tacaawuno oo wax wada qabsado, mujtamac iscunaya? ma dhici karto. walidaalika bay shareecadeennu waxay hufaysaa oy ilaalinaysaa si uu mujtamacu u noqdo mujtamac nadiif ah. ayaa carabka ayaa islaamka ilaalinaya. xantu sida aanu sheegnay waa musiibatun cala almujtamac, waa mujtamaca musiibo iyo dhibaato ku timaada. quluubta waxay ku samaysaa waxyaabo aad u yaab badan, ruuxda waxay u beddeshaa waxyaabo aad iyo aad u yaab badan. qoysaska waxay u baabi'isaa reeraha isqaba, carabku iyo isku dirku
buhtaanka iyo been abuurku xanta iyo dab kala qaadidu waxay dumisay reero aad u fara badan kaanama mithaalka ugu qiimo badan oo ku mithaalin kara waa maxay xantu bulshada dhaxdeeda say u baabi'iso xagga akhlaaqda iyo xagga diinta iyo xagga ishaysasho la'aanta waxaan ku mithaalin karnaa caws qallalan angegan oo tarakh la geliyey kadibna dabayl adag ay kaga timid maxay dhinaca ay kaga timid dabka intee leeg buu faafayaa intee leeg buu gaarayaa taabuse wax baabi'in karaa horta xantu waxay dhaawacdaa akhlaaqda waxay kala dishaa labada walaalaha ah xanta ayaa kala kaxaysa axibada ayadaa kala fogaysa waxay fasahaadisaa xiriirka ka dhaxeeya ama labada isqabta ama kuwa wada dhashay noocay doona ha noqotee ayay horta kala fogaysaa sidaa daraaddeed muqadimadaas kooban haddii aanu fahamnay xan maxaa la yidhaahdaa si aan u garanon u qeexno si aanu oga fogaano waxaa la yidhahdaa ghiibadu asalkeedu luqada carabiga waxay ka timid min alghayb ghaybkuna waa wax qarsoon oo indhaha bini aadamka ka qarsoon walidaalika kullu maa gaaba canka ayaa waxaa la yidhaahdaa ghayb wax kastoo adiga kaa maqan oo kaa qarsoon baa ghayb la yidhaahdaa haddaba ghiibada maxaa ghayb loogu magacaabay waxay dhahaan culimmadu qof kaa maqan oo kaa qarsoon oo indhahaaga ka maqan maadaamaad wax ka sheegayso ayaa halkaa laga soo ishtiqaaqday qof kaa qarsoon ayaad wax ka sheegaysaa waa xagga luqada xagga culummada mustalax istilaaxa iyo culummada heshiiskeedu maxaa la yidhahdaa nabi maxamed baa qeexay calayhi salatu wasalaam ma cid kalaa qeexi ma cid kalaa qeexitaanka nabiga calayhi salatu wasalaam cid kale miyaa qeexi karta oo caddayn karta wuxuu nabigu caddeeyey calayhi salatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi atadruuna ma alghiiba ma taqaanaan ghiibo wax loo yaqaan ghiibo wax loo yaqaano ma taqaanaan markaasay dhaheen allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa ayaa garanaya allahu warasuuluhu aclam markaasuu nabigu yidhi sal slam dikruka akhaaka bima yakrah waa inaad ku sheegto walaalkaaga muslimka ah wax uu kahanayo ama wax uu nacayo ama wax uu dhibsanhayo nabi muxamed baana saa ku fasiray sala allahu calayh wasalam idan su-aal baa muhiim qur-aanku wuxuu tilmaamay wax la yidhaahdo ghiiba wuxuu tilmaamay wax la yidhahdo buhtaan wuxuu tilmaamay wax la yidhahdo ifki idan ma alfarqu bayna alghiibati walbuhtaani walifki waxay u baahnay inaan kala fahamno nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa noo kala caddeeyey farqiga u dhaxeeya ghiibada iyo buhtaanka waatana su-aashuu nabigu saxaabada weydiiyey nabiga calayhi salatu wasalaam markuu xadiidkii sheegay hadda ayaa la yidhi ara'ayta in kaana fiihi ma aquul dikruka akhaaka bima yakrah waa walaalka oo aad ku sheegto wax uu nacayo su-aal bay saxaabadu weydiiyeen waxay dhaheen qofkani waxaan ku sheegaya hadday sax tahayna rasuulka ilaahayow qofkii waa iga maqan yaho waxbaa ka sheegay laakiin waxaan ka sheegayo waa sax oo tilmaantaa waa leeyahay markaasuu nabigu yiri sal ly slam in kaana fiihi maa taquulu faqad iqtabtah allahu akbar waxa aad ku tilmaamayso hadduu yahay oo uu ku tilmaaman yahay waad xamatay wain lam yakun fiihi waxaad ku sheegayso hadduusan ku tilmaanayna faqad bahadta waad nabatay walidaalika nabigu muxuu noo kala qeex alayh salatu salaam qofka markuu qof wax ku sheego laba u qaybi waxa uu ku sheegay hadduu ku tilmaaman yahay waad xamatay waxa aad ku sheegtay hadday been abuur tahayna waad nabtay walbuhtaanu inamaa yakuunu fi lbaatil marka buhtaanku waa maxay waa wax aan jirin ood qofka ku dhajiso oo baatil ah ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waladiina yu'duuna almu'miniina
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا كوا دبيا مؤمنين ترجع إيا مؤمنين الدمركة كنا دبيا وحينا كسبنين أو أين لا إيمان إفكي آياتك هو يدنا عائشة مركب على قشة آياتك سود دبيا أهين آيات نكون جرتها الله وحيري إنه هو يدنا عائشة محل وشة وحينا أهين صبا عبد الله بن أبي بن السلول عليه لعائن الله تترى محوكوش هو يدنا عائشة وحينا أهين والحمة لمانهن قرآن كده يسوع فقد احتملوا بهتانا بوليه كواسي وحي نمرك أوريتين وحلو يقان بهتان أمحوها بهتان كوا باطل هذا وتنسومريني إنو يهي بهتان إنما يكون في الباطل وح باطل أو أن وحبك كتشرين أي الدش كوقاتين إيا وإثم مبينا إيا دنبي أن قرصونين أنددنين أو سيدا نلقى وعد ويدنا عائشة إلهي ببري سبحانه وتعالى بوتيغو مركا وحو نقون كرا غيبة محاد عي لأن مرنا قفك وكامقا أياد كو شيغيساه مرنا محي وحو السنهين بعد كو شيغتي أوفيرس مركا بوتانكو لبدي وسكو ودان كرا وقد يكون حضورا أو حاضرا قف شوغا إنو يهينا وصورتقل ولذلك الإمام النووي عليه رحمة الله وحيري أصل البؤت أن يقال له الباطل يعني بين أبورك إيا النبيض أصل كذا وإلا يلهذا ووحا وحبا كتشرين انت عدانو قراني مقدمة يروكوبا إيا التعريف كقيحتانك غيبة إيا فرق أودحية بهتانك إيا غيبة وحنا دربائنا انت المامو الدلالة كسو أرورتي والس وعدياه بلورتا إنا اسكو وعدينو إلهي كو حرمي سنة قرآنك إيا السنة ولذلك الإمام المنذري رحمه الله وعلماء انت بدن إجماع صورت كذلك إمام النووي وحيدهن الغيبة حرام بإجماع أهل العلم علماء المسلمين قاطبة وإسكوا فقسيهن حنت إلي حرمت قيبا كسر ريبي دونا ير أو كوكوبا هذا وقت ونو سامحه أيان تلمامي دونا نقل إجماع الإمام النووي رحمة الله عليه وسوق بيي وكذلك إمام المنذر لكن وحيسكو خلافين علماء ظفيرية وحيسكو خلافين ما كبائرت إيا الدنبية واوين با حمت مسوا صغائرت إيا الدنبية يرير أن كده يسنو شيخ المفسرين الإمام القرطبي رحمه الله وحيري الاتفاق على كونها من الكبائر أي علماء اسكو وافقين ليش؟ ولما جاء فيها من الوعيد الشديد في القرآن والسنة وعلماء قاعدة وحين السيارة ابن عباس غير كينا وإليه هدابد أرقتو سانكو كلا قرتا وحن وكبيرو إيا ودنبي وين أو توبد أباهن إيا وصغيرو waxaa lagu dhaqayaa weysada iyo sadaqada iyo fadhigan hadda aan fadhino in cilmiga u fadhino iyo hadalka wanaagsan iyo ihsaanka ayaa lagu daadinaya oo lagu dhaqayaa farqiga u dhaxeeya saqiirada iyo kabiirada horta waa inta oo midna toobad bay u baahan tahay midna almaahiya dhunubta ayaa tirtiraysa in tajtanibu كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم هذا دنبيده واوين كفواتان كوا يريرك اوانو اذين دافينا صوما وندخلكم مدخلا كريما اذا محانكو كلا غرتا معصيدني اني شيء دنبي وين يحي iyo inuu mid yar maxaan kula gartaa maanta qaacidan baranayna waa maxay wax kasta oo waciid ku soo arooray ama goodi ku soo arooray kabiiro weey bas wax kasta oo goodi ku soo arooray ama waciid ku soo arooray oo la dhoo qofka sameeya lacnad buu mudanaya qofka sameeya cara allu mudanaya qofka sameeya ciqaab allu mudanaya qofka sameeya عذاب وقليا قفك السمية ولا كل وعيد كنوع عاسة وحد قدر ستامان تلقى بالله إني كبيرة وعلى وحن كسو أرورين صغائر ويمركا فرق قاسة أولا حيا مركا إذا الرباط هو كبيرة صوما عقوق الوالدين هو كبيرة صوما
hadday qiibada waa arki doonaa markaan adilada gaadhno maadaama qaacidada qaadatay ma saqaa'ir baa wax lagu raaxaysan karaba fadhi ku dirrada lagu qorxin karo fadhiyada mise waa dunuub waaweyn oo ilaahay ka cadhoonayo subxaanahu wa tacaala culamo yar baa qabta inay saqaa'ir tahay الإمام الغزالي iyo غيرkii ayaa qaba laakiin القول بأنها من الكبائر هو قول جماهير أهل العلم علمada intooda badan saasay qabaan khilaaf yaroo manquul عن الغزالي ابن حجر عسقلاني ayaa si fiican u tafsiiliyay wuxuu yiri labada ra'yi ee culimadu ay sheegeen waa kabiira iyo waa sagiira ayaa waxaan ku jamcinaynaa buu yiri faman iqtaba waliyan lillah أو عالما ليس كمن اغتاب مجهول الحال مثلا ننكح أنت من ولي من أولياء الله تقي ورع حلال ميرض ننكح أنت أما نن عالم أو دينت أنت أخذ مين ننكح أنت نبي ننكح أنت ما رسول ننكح أنت ما الله مدبا نن أن آل أوغين حال كيس أو مجهولة oo aan xaalkiisa war laga haynin nin xanta isku mid maaha marka xagee uu ka keenayaa wuxuu ka keenayaa ninka waliga ninka xanta ama wax ka sheega ilaah baa dagaal u ballan qaasaba man aada li waliyan faqad aadantuhu ay a'lantuhu bil harb ayu hadith qudsi alla ku yiri subhanahu wa ta'ala marka ya wali ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة يونس أغري قف كستؤو الله كبقى وولي اسك إلالي دتك هكو حد قد بين دتك اسك إلالي دتك قال أولياء إلهي ما كجرة داد أولياء إلهي ويبوحان تف عربك كإلاش هديك لو حاضيه حقيب بلا يدو إيقاتبت عرورتا يدو محي إيقات رومين محي كاقل ملايين ميل بفرد إذا ضد بذهلم كود عنيسة أولياء إلهي دعاء إلى الله يا ده الدعاء إلى الله همان يا مالبا أسوأ شيء الدين إلهي الله نبي الدين إلهي مركز تكون راح يسنى سيد قات كل عنيس مركز تكون راح يسنى سيد فني كدير كوكر حسنيس سلام تادينا ضب اللي ذيك اللي هذه سلام تادي عرور تادينا من طمي من دار راعيات كنكت هذا وتنادى هذا الشيخ ويدعيه هذا هو دعين هذه يجيب كيس علي إن كارته بحق يسيك عقدت منه ما لقوا دعية ما صيد دعاء مكيما إنكارتنا كيماني توب إلى الله مركضوا الله يا رب إلى أنه توبت كيمتو مركضتك هيلي بكود إسكا إلالي قفك الدونو هننقضوا ولذلك ما وحيدهن ضدك ويكل دويهن عبادة السيء أوكر دويهن بدنبك أبنان كراه ولذلك ما ربي سبحانه وتعالى أدلات كآيات أو عجائب بدن سورة الأخلاق بلغو كيري سورة الأخلاق هي وسورة ده وسورة الأحزاب وقفك الدونية إنه أخلاق ذا قفك مسلم كإنه فهمه أما أصغب ميزان إسصاره أخلاق ذيسا إيا التزام كيسا ديني إيا استقامة ذيسا إيا توسنان تيسا سورة الأحزاب سورة الحجرات بروتشي ذا سورة الحجرات ها آخر سورة الحجرات وحي كبلا يا أيها الذين آمنوا إيش ما قبلها لا تقدموا هل قبلت فيني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم يا أيها الذين آمنوا مارتا أنت إلى شيء سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وريوسا حمن يوسا حمن غيبة ذوي قاركين قارك كلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ما تشعل يا ميدي ذيك كاملة ولكن انتو ميسك صادقتو ومن دي انت لك سوقاتو عصبير هالكا صادقتو انتو عاد كقوست او عصبة قشرين معنا سيقول لطه نفت هذا ما أقراني سا ضميرك هذا ما أقراني يا ألا وحين فكريتمو أرنكا وروادنا عظين أرنكا نفتي إنه ويكهانيسا أو ما أقلانيسان
إلهي كعب صدا واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولذلك الإمام القاضي أبو يعلى رحمه الله أي أصدق أنه مثالنا وحجري الله وحو كتمثيلي الصورة أهان سيدي معلي صبورته وحكو عضينا إياه وحو لغو تمثيلي غيبة بأكل الميت قفكو إنه ميت عني مركز حوري وهذا تأكيد لتحريم الغيبة أرنكا وحي لوتشينيسا أو أتكينيسا حنت حرام لماذا ليش؟ لأن أكل لحم المسلم محظور هرب قف مسلم إن أدعنتوا حرام نفتنا طبعي أهان ويؤدي ليسا مركز حوري فينبغي أن تكون الغيبة بمنزلتي في الكراهة. إلهي آيات كانوا يحكوني ولا تلمزوا أنفسكم وصورة الأخلاق أيضا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. الإمام الشنقيطي أي أيضا فسر كذا لجيزة وحير الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقارا أو ازدراء. آياته maxay tiri ولا تلمزوا ومحي لمز مرك ومحي لمز ويل لكل همزة ومحي لمز وحجر اللمز وحال هذا ووح الله وحي قفك وفعل أهان السمايو سيدا قفك وإنها ساس له ولا كرزون قفك وإنها معي ساسك وقبت أما ساوك لفرة وديدنا إنا سمايو لكن وين فهمتين بانو مرينا كالغمز بالعين محو سمينيا احتقارا او ازدراء وحقريا هبل ساسوي وحن ويسيا اسكدا هبل لمزق وكا فعلك اما عندها اما قعمها واحد انت كسمه لمزق نوام حي همزي هدان قرني همز كوان قرني لمزي محالي هذا اللمز باللسان عربك waxa laga sheegana waxa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa lamz wixii ficil ahaan loo sheegay maxaa la yiraahdaa hamaz ghiibada ayayna soo galayaan labaduba walidalika ba nabigeena alayhi salatu wassalam nabigeena alayhi salatu wassalam nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigeena alayhi salatu wassalam sallallahu alayka ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam asagoo hajjatul wadaa taagan oo umada islaamka la dardaarmaya وحجر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وأمركم النبي دردار مي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ورهوية دقيسة مسلمين دقيسة صومالية دقيسة مسلمين دقيسة والصومالية دقيسة إن دماءكم والليقين inaad dhiigiina xaq darro ku daadisaan dhiigeenu xaq buu ku socdaa mise xaq darro ku socdaa ummadan isbaabi'inays inna dima'akum dardaaranka nabiga sallallahu alayhi wasallam inna dima'akum wa amwalakum iyo inaad xoolihiina xaq darro ku kala cuntaan wa a'raadakum iyo sharaftiina qofka inaad waxba ka sheegin alaykum haramun كحرمة يومكم هذا حرام بي إذن كتهي سيدا ما انت أوكالي أي حرام أتهي إن بيقلا داذيو مال انتو عرفة بشو هذه الحجة بشو هذه الحجة ولبا مال انتو ومال جمعة ولبا مال انتو ومال جمعة أو نبي عرفتها هي أو بشو أي تاي سقال أيو النبي صلى الله عليه وسلم سيدي مانتو كلا حرام وتهي مكة إنيق لو داديو حول بني آدم مانتو كلا سي حرام وتهي إن لو عنو أيي شرفت قفك مسلم كأنا حرام وتهي لابية طبعا كبيرودو كلامي كويتون كبيرودو حديث كلو أو كسي عجائب بدن نبينا عليه الصلاة والسلام وحليه من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة الله أكبر حديث كاس
aad aan u wada dhuuxno yaa ii kafaala qaadaya yaa ii ballan qaadaya garhka labadiisa lafood xubinka ku dhex jira u dhexeeya waa carabka maa bayna laxyayhi laxyay waa halkan iyo halkan carabkaa laga wadaa war yaa ii ballan qaadaya carabkiisa inuu qabto wamaa bayna rijlayhi labadiisa lugood dhaxdooda xubinka tarankaa ku jira war yaa ii ballan qaadaya oo labadaa ilaalinhaya oon admanu lahu ljanna sala allahu calayh wasalam oo aan janno u ballan qaadaa allah waxaad garanaysaa marka arrin adag inay tahay soo ma arrin janno ku xidhan wey jannada ilaahayna waa haali bidaliil ina allaha ishtaraa min almu'miniin بدليل من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلعة الله غالية جنة إلهي عيار لقو مقالو قفك عرب كيسا قبتي حب كيسا ترنك أنا قبتي ابن بطال تقيست أحد العلماء وحكوف سروحيري دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه وحيري حديث كان وحكوت الصينية امتحانك ugu weyn ee qof bini aadam adduunyada ku qabsada waa carabkiisa iyo farjigiisa oo ilaalin laha labadaas loo xifdin laha zinada looga ilaalin laha xanta iyo xumaanta looga ilaalin laha waa imtixaan aan caadi ahayn ayuu leeyahay markaas wuxuu yiri faman waqa qofka ilaaliya buu yiri labada aw wuqiya laga ilaaliyo labada shartooda waxaa laga ilaaliyay shar aad iyo aad u weyn ayaa laga ilaaliyay Abu Hurayra kama fi sahihayn nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu inna al-abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi an-nar ab'ada ma bayna al-mashriqi wa fi riwayatin yahwi biha fi nar jahannam wa fi riwaya ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofku kalima ayuu ku hadlaya kalima والله أرنتها خطر بين وتها كلين متكلم كما كوكا قفا كلمة وسكها الله يا كلمة داسي ما دريم يا إلى معنى وين أو فرده اسم لها كلمة دمي ما كاسو قاري كفتر وي وكلمة هكذا طرحها مجلس الله قص ليو الله فرده أيو كلمة اسكت صوري أصلا معنى وين أو ما فرده markaasuu wuxuu naarta ku dhex cararayaa sidii qof meel ay roob ku da'ay oo maxaa la yiraahdaa ay lugtu sibibix ah say lugtu ola cararto oo kale ama markuu baraf ku fariisto say lugtu ola cararto oo kale ayuu muxuu soconayaa in ka badan mashriq iyo maghrib naartu ku sii fogaanaya waliba in ka badan waa kelimo yar oo adigu u maleynaynin in ay dambiba ka soo gaarayso أو ولي بعد إسرائيل ما يكفتن بان أولا تشيدا أول نمانكي جد بن قيسنين كل ليه تشري إيه غزوة التبوك منافقينتي وحيدهن صحابة وحكف ليسن مركي دقال لقلي وحكا عنتبضا مركا عنتلا عنايو لبدا كلمة يدهن إله با سبحانه وتعالى النبي يسقرا كسودة شي بل نقيس وحال يري والله يري وحال يري maxaa saxaabadu wax uga sheegayseen waxay dhaheen wadadan ku goynaynay wadadaanu ku maraynay wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Allah sajima kalimatkum maxay ahaayeen jees bay ka wadeen waa lamzigi iyo همسك أشياء وحال يري لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وحباها عذر دارانين إيمان كذب وذر الدودين أو واد قالوا ذين فرس خطرت أي لا ضحي ولذلك بقى الإمام النووي وعير في هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق الإمام النووي رحمه الله dadkii salafka aha fahamkoodu waa cajiib waa inaan wax ku qaadanaa xadiidkan wuxuu daliil u yahay
carabka in la ilaaliyo waxaa muhiima buu yidhi qofku intuusan hadlin inuu ka fiirsado wax uu ku hadlayo fain daharat maslaxa takalam hadday maslaxad u muuqato wuu hadlayaa wailaa amsak man samata naja waa xadiis saxiixa صححه الألباني في السلسلة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت رواية كله نبينا عليه الصلاة والسلام وحيه من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق ربا مد أوح وإن القف مسلم أتكحد قذبته ربا ده وحلقة وده وحقف له عقابه ربا ده عقاب بدن بيلاده الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فأذنوا بحرب من الله ورسوله ربا عقابك انت لا أقله وحاك خطر سنبال ويلي إن تكون حد قذب توقف مسلمة عرض جيسية شرفتيسة ولذلك هو يدنا عايشة مركي عرض يدا وحلقة شاقي قرآن أن أخرنا إلى يوم القيامة باسود دقي هو يدنا عائشة رضي الله تعالى عنها waxaan inibay tiri maalmaha kamida haweenka la isla qabo marka qaarkood xogo way kala masayran Soomaa waxaan inibay tiri yaa rasuulallah intuu soo qaaso Safiya intuu magaceeda soo qaaday Safiya bint Huyay bint Akhtab sayyidati bani Nadir Quraysh wa Nadir gabadha oo nabigu qabay sallallahu alayhi wasallam intuu magaceeda soo qaaday ayaan qultu lin nabiy sallallahu alayhi wasallam hasbuka min Safiya annaha qasira waxaan inibay tiri rasuulka Ilaahay صفية عيب وحا ugu filan waa islaan gaaban anaga islaan waa gaaban tahay iyo way madowdahay iyo miya waxbay nala tahay koob shaah intaas waan ku durduranaa marka sabaxta hebel waa curyaan iyo waa cheese iyo ilaawo iyo illa yahay waa dhagoole iyo waxa inaga waxbay nala yihiin qasiir markaasuu nabigu waa carooday sallallahu فقال وحيري لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته عائشة وحاتكو هذا الشيء كلمة هذه بدل لغدر لها بدو أي قرم لهيت سبحانك يا رب هذه بدل لغدر لها بدو وإسبدل لهيت قرمون بيسبدل لهيت بيونا أركتدو انت بيني ما إسكبدلان أي نوع كان يسبدل لهيت ما حيش يكتبين عائشة way gaabant waliba riwaayada qaarkood saasay tiri riwaayada qaarkood waa qasiira oo saasamayn cadeyn riwaayada qaarkood waxay tiri hasbuka min safiya annaha wa ishaarada aan sheegaynay soo hamis maayn waa ishaaro khataraw sida oo kale u fiirsada markii la rajmiyay saxaabigi maacis la dhihi jiray ee zinada galay markii la rajmiyo xadki laga gooyay ayaa nabigu wuxuu maqlay sallallahu alayhi wasallam laba nin oo meel taagano sheekaysanaysa maxay leeyihiin war miyaadan arkaynin ninkan intuu ilaahay asturay banaanka isa soo dhigay oo naftiisu ay ka tagi weyday illa la rajmiyo sida ayga loo rajmiyo ofis waa nin intuu dambi galay banaanka iskeenay صوما او حدود الهي لغو فوليه يا waxay leeyin bal ilaahay ba asturay muxuu isu keenay way xamanayaan markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam nimankii ay uu maqlayay ayagoo isla socda marka ayaa nabigu wuxuu maray dameer bakhtiyay oo waliba soo uraya oo maalma yaalay markaasuu nabigu yiri ayna fulan wa fulan hebel iyo hebel آوية كاليا ويمادين مركاسو يسودق فكلا من جيفة هذا الحمار دمير كان بختي سعونا مثال كعجائب كأوفير صد فقال يا نبي الله من يأكل هذا رسولك إلهي يأكل عنية مركاسو نبي صلى الله عليه وسلم لبذينا hilibkii walaalkiin eed cunteen ayaa wuxuu ka daran yahay buu yiri dameerkan bakhtiga hilibkiis maxaad ka dhadeen culimo allah yaa mashaayikh
وولي بهذا مركي لو عليسين ولذلك حديث كده راية قرن إنسان معاذ بن جبل والنبي صلى الله عليه وسلم قداشه وكلا صارنا دميركه نبي وحيري ألا أخبرك بملاك ذلك كله وقرز الحديث كي ديرا حتى 40 كنوية اللي في صحيح مسلم نبي صلى الله عليه وسلم وحيري صلاة الليل إيه واحد صور شيخنا أوردن إيه عباداتك إيه جهادك إيه أنت أصلا وحدادا إلى لنن أين كو أنفع أين كو صور شيخنا قيامه مكاغا شكايا هذا إلي ويري مركاسو النبي عرب كي سقبت صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا كان اسكقبو مسكن أفك كاغتشرا اسكقبو ودلاء معاذ بن جبل وكفى إذا سوى حيري يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به وكان وحن كهذا لما نلوق من دون ما ننت قيامه فكلتك أمك يا معاذ ورهو يدا كويدي ضدك ما وحك لا وجي إيا قدر لو ترى نارت إلا وحا أي عرب كوضك كسبدين موين الله سبحانه وتعالى ومتكلا عيري ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ووحل ويدين يوي وحكى حنون بدل الحديث كان نجيسا حديث الشيء إنه وما بين صحيح وحسن لغيره حسن لذاته حديث اللي حجيسين كمجلو كوكل صناضة نبينا صلى الله عليه وسلم وحيري مركل لويديو عن أكثر ما يدخل الناس النار النار ما يدخل الناس النار ذاتك وحا أقول بدن النار تقلية محاكم إذا ما يدخل الناس النار مركز النبي يقول الفم والفرج الفم والفرج وعربك يحبك ترك وحا أقول بدن ذاتك النار تقلية والله بدأ أي نبي يقول صلى الله عليه وسلم وحان نحتال يركض دون إن شاء الله العلماء مسلمين تاسي أفهمين موضوعا قضب كانوا قضب رنتي آدمه مؤة وحان كب الله بدونا بإذن الله عز وجل صحابي عمرو بن عاص صحابي جليل رضي الله تعالى عنه أي أسقوا الله الصعدة أصحاب تيسا أي وحي صومرين فرس بختئة أما ميدا أي صومرين أولي ببرري كدب وحويري والله إنان قف إذن كمذا إنو عنه علاشي سنة وكبوحيو فرس كان بختقة أي أغا خير بدن إنو قف مسلم هيلب كيس عنه وتطبيق عملية وصحابة النبي قال لنا وراء القرآن كسو دقي ساسي وحي فهمين الله يابا إنك إنان إنتان وحنا لغو أقريو كأقرنا يكون لغو أقرنا إنان وحبا كديرين لكن صحابة مركي أي مقلان نص آيات قرآن أما حديث أما أمر أما النهي مركبة ويدقن قليل شرين وحلية هاي قف إذن كميدا إنو الضمير كابختية أما بقى الكاسي إنو عنو إيا إنو قف مسلمة وحكاش إيغو وحا أفضل إنو بختية عنو محو ترجمي آيات القرآن كهيد ولا يغتب بعضكم بعضا عدي بن حاتم رحمه الله وحوليه شري الكلمة نفير صدا الغيبة مرعى اللئام وحوليه شري حنتو وضدك الليته طاقوضة وحي داقصدان أو أي عنان أو يكون تمتعان أو أي كن راحيسان أو أي دكود الشقة كنكتان وضدك الليته لكن ضد أهل الشرف ودعي كرتا قفكوا بني آدم إنه وحكا دعان لكن مركيبة داود أن ذلك الشيء دونه عذر والبداو له كل داء له دواء إلا الموت أو إلا الهرم والموت عذر والبداو له إلا الدقنمو داوى مره جيري كوت مدنا أو أجشادو أي دماتينا داوى مره وإلا عذر والبداو له عذر كان وحي داوده أها وحبان كتلمامي دونا كعب الأحبار الغيبة
غيبدو وحيبا بإساء أي بربرساء عملك وأنا أركض أن أحاديث النبي أنه إمام دونتا صلى الله عليه وسلم يعني إن حنت إن أيتهي قيبين أد قيبين أيسو صلاة دي عشان هدي تكني قيبين أد قيبين أيسو صدقة دي الله بحضي هذا قيبين أياه هكي والعجيب يا سينيسا قف أد نعبتها يبقى سينيسا قفك أد نعبتها الحمانيسو وأد نعبتها محصلات دادو سينيسا أو أتصون كاغو سينيسا ولذلك بقى أحد السلف وحيري هدان عدء حمل لها هو يذبا حمل لها وكان خطيبا خطبه أغرني دادك واسوجيستي وأركي مركا إنه دادك حوغا انتباه في تجنان أي صوصة ميين مركاسو وحيري لأنه هو يذبا شعر هايبي هدان عدء سين لها أبو يري أجر كيه وحان سين لها هو يذبا حق له أو أن سين لها حسن البصري تابعي كبير وحوءها يكعب الأحبار والتابعين وحير الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى والله للغيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم يعني حنته ويكدك دك بدنتهي قفك مسلم كدين تيسا سيقول ما يسو أو دين تيسا أرفته أو دين تيسا إبر إيا بابا أي أغدقته يعني وحاويان وحيابها وحعونه سيدي أي جسد كبني آدم كإبر أغدقان وحاكا خطرسن حنتو سيدي دين تاذا أبابي إنيس ولذلك بقى سفيان بن عيينة جري الغيبة أشد من الدين دينتو وعليس محايا الدينتو فرسو وعليس دينتو على غيابها إن هذا قفك دينتو كولها آتسيسو لكن أفرسو كي دينتو كولها ودمانيا كي أضحمتي وحال غيابها وحيالا فربضا محايا وحيري الدين يقضى والغيبة لا تقضى طبعا لا تقضى بركو ليه وامحي وهذا وقفك يدول انتبه خطر ما لقوضا وإلا هدود قلنوا لي هاي أخي عفي وانكو عنطي وأيضا وقيب كميدوي ولذلك بقى سفيان الثوري رحمه الله وحوليه جري اسكا إلالي وحان كاقدق يا حانتا وحان كاقدق يا إلى المسلمين تا عرضقوا ذا كل عضو أو مركاسي دين تادو أي هلاك سنتو ولذلك بقى علي بن حسين وحوم مغلنين وحمانيا مركاسو يلي إياك والغيبة محايا لي فإنها إدام كلاب الناس دتك أيدو ذا مرق ضوي ومرق أي دتك أيدو ذا وحيابي السوق ذا كدكتاوي أبو عاصم النبيل وحليه لا يذكر الناس إلا بما يكرهون دتك كمشيغان وحين عيان إلا سفله لا دين له يعني ضد موريان سفله وموريانت أن دينته ذا إلى شنين أو ضدك حوله هذا أن إلى لينين أو ضدك عرضه هذا أن إلى وموريان دول تشيفوي كوا دول تشيف كه موريان تأ كوا بعدتك محل إلى ذهيل بكوضو قرب صدا وحن ربائنا انتلمام أيها الإخوة وحاجر قفك وحكو الريحة إنه وحنته محاكم إذا ضعف الوزع ضعف الورع والإيمان قفك إنه حلال ميرد كيس ويريح وحيكدغيسا قفك إنه عرضك ضدك بني آدم كأوسن كعشون ولذلك بقى النبي صلى الله عليه وسلم قصدي إفكيغا مقشين ضدك وريسنا وحاكميدها زينب بنت جحش وحاسسك النبي عبد الله بن جحش يحمنا بن جحش ولا لا هايين مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم وانا قبليه دي الاسلقبي افيرسو وقبليه الاسلقبي هوانك الاسلقبي انا وحا كدخايا maxay waxba ka dhaxeeya maanta fursay haysata Zaynab bint Jahsh hadayna warac iyo iimaan iyo halal miirad iyo taqwa iyo Allah ka cabsi hadayna celinaynin maanta fursad fiican bay haysataa inay Aisha maxay ay dhahdo waxa ay waxaasay tahay soo saasma wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam كورن زينبي كورن قبل الإرادة عائشة وحيابها لشيك شيء وحيتر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أحمي سمعي وبصري وحان إلى لنا يا
dhagahayga maxaa yeelay mas-uul baa ka tahay ina asamca waxaan ilaalinayaa indhahayga walbasara maa calimtu ilaa khayran bay tiri wallaahi waxaan khayr ahayn inaanan ku ogeyn gabadha la yidhaahda caaisha radia allahu tacala canha bal ka waran markaasaa caaisha ka yar warramaysa tacliiq yar bay saaraysaa tacliiq hadda anu aan bixiyey eenah waa laba gabdhood oo laslaqa waxay tihi wahiya alatii kaanat tusaawimiini fii aswaaji rasuli sal ly slam facasamaha allahu bilwarac waa gabadha igula tartamaysay bay tiri gabdhaha waa gabadhii tartanka igula jirtay haweenka nabiga markii loo fiiriyo waa gabadhi aan aniga iyada tartanka iskula jirnay nabiga jacaylkiisa iyo soo jiidashadiisa iyo dumarku nabigu axzaab bay kala ahaayeen hogaamiyey kala lahaayeen xataa qisadii malabka laba kooxood bay ahaayeen wahiya alatii tusaawimiini min aswaaji rasuulilah facasamaha allahu bilwarac ilaahay wuxuu ku ilaaliyey iimaanka iyo xalaal miiradka ayuu rabbi ku walaaliyey subxaanahu wa tacaala ولذلك الفقيه السمرقندي رحمه الله تعالى وحيري الورع الخالص ورع أي حلال ميرد كبرحة تراني وأن يكف بصره عن الحرام ويكف لسانه عن الكذب والغيبة وإنه قفك إن به سكلابه حرامته لن يرضينا ما أنت وضعتين حرامته يكون جيران لن يرضينا ما أنت حرام أدك بيكون جيران أن يكف بصره عن الحرام ويكف لسانه عن الكذب والغيبة إن وقفك بنت إيحانت كريبه ويكف جميع أعضائه وجوارحه عن الحرام إنه ريبه قضبك وقضب مهمة قضبك لباده كل ريحك رقفك إنه حنت سميه وموافقة الأقران أو موافقة الأقران والجلساء والمجاملة قفكه موافقة الأقران dadka isku da'da ba aqraan la yiraahdaa dadka isla socda sheeka wadaaga leh ayaa aqraan la yiraahdaa dadkaasi isku waqtiga ah oo qofku ku waafaqo waxa ay sheegayaan asagoo u mujaamaleynaya oo u dhool cadeynaya diidanna ayagu inay dhibsadaan waxan la sheegayo saaxiibnimadoodana ilaalinaya arrinka way nagu badan tahay Soomaa arrinka waa arrin badan waad arkaysaa qofka inuu qof xamanayo laakiin waa saaxiibka ninka waa saaxiibka ma doonaysid inaad ka cadhaysiis gabadhan waa gabadha saaxiibteed ma doonaysid inaad ka xaraajis mujaamalada noocaas qaala allahu tacaala calaa lisaani ahli nnaar ahlu naarku waxay dhihi doonaan wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin kuwa baatilka dabaasha ayaan annaguna la dhex dabaalan jirnay kuwa baatilka dabaasha ayaa la dhex dabaalan jirnay qataada oo taabici kabiira oo tafsiirinaya wuxuu yidhi kulamaa gawaa gaawin gawaynaa macahu mid kasta oo baadiyoobo oo leexda annagana waa la leexan jirna bay ka wadaan nabiga sala allahu alay wasalama xadiid mataqaana xasanu ligayri man iltamasa rida annaasi bisakhat illaah qofka dadka raalligelintooda rida annaas dadka raalligelintooda qofka ku raadiya ilaahay caradiisa muhiimaddu inay dadku iga raali noqdaan qofka sidaa u fakera ilaahay dadku u wakiishaa waana mid uu imaam shaafici dhihi jiray irdaa'u nnaasi gaayatun laa tudrak bini aadam ma raaligelin kartid adeer bini aadamka ma raaligelin kartid aayad kale alla waa fawaylu lilmukadibiin aladiina hum fii khawdin yalcabuun ibnu kasiir wuxuu leeyahay hum fi dunya yakhuuduuna fi lbaatil adduunyada baatilka ayay dhex dabaalan jireen qodobka saddexaad oo qofka ku riixi kara xanta waxaa ka mid a alxiqd cala almuslimiin qofku waana salaamatu sadrigii sheekh mustafa uu ka sheekeynayay salaamatu sadri sabiilu salaf laabxaanaantu waa dadkii naga horeeyey wadadoodii qofka oo muslimiinta xiqdi iyo xaasidnimo iyo caro u qaada maxaa laga yaabaa inay carada ku salaysan tahay laa nadri lacalahu min qabiilati fulaan lacal laga yaaba inuu reer hebel yahay reer hebel dartiiba nagu cadhaysna waxaa doontaba dhe qofka xiqdiga muslimiinta u qaadana hadde inuu xanto soomaa markaa waa khatar wey walidaalika baa shaykhu lislam ibnu taymiya raximah llah wuxuu le wa minhum man yaxmiluhu alxasadu cala alghiiba waxaa ka mida dadka qayb ay ku xumbaarayso xantu xaasidnimadu markaasuu wuxuu jamcinayaa fayajmacu bayna amrayni qabiixayn laba arin oo foolfool xun buu isu keenayaa wa alghiibatu walxasad mar waa xasad xasadkiina muxuu gaadhsiiyey inuu qof xanto markaasuu wuxuu jamciyey bayna qabiixatayn amrayni qabiixayn laba dhib laba arimood
ayuu jamciyey tusaalu ka bixiyey marka wuxuu yidhi midka uu jecel yahay markuu doonaya inuu ammaano siduu doonu u ammaanayaa kaannama inuu macsuum yahay midka ay wax ka dhaxeeyeenna marka uu doonayo fadli walba iyo wanaag kasta ha lahaadee markuu doonayo maadaama oo xiqdi iyo xumaan iyo xasnimo uu hayo wuxuu ka tuurayaa daaqada kaannahu inuu maxaa yahay yuhuudda midka fircawn inuu yahay wayna dhacday xataa ducaadda dhexdooda iska daa wax kale waxaad arkaysaa laba isku nooc ahaa ama isku nidaam ahaa ama isku xarako ahaa ama isku jamaaco ahaa oo shalay isla socday oo markay iskhilaafaan kaanama alfaada la isticmaalayo uu leeyahay mataqaanaa fulaan akhtar cala alislaami min eesh alyahuud wa ibliis miyaad weligaa waxaa aragtay ibliis iyo yahuud asaga islaamka kaga daran wax kale ma aha waa xiqdiga iyo xumaanta iyo xaasinimada gashay maxay gaarsiisay inuu maxaa fayajmacu bayna amrayni qabiixayn labada ayuu jamciyey alghiiba ayuu jamciyey iyo maxay ahayd alxasad sidoo kale waxyaabaha uu kala kulmo qofka dadka xanta waxaa ka mid a adduunyadu alla ku fashilaa xadiidka ila dhegaysta nabiga sal ly slam baa mimbar fuulay fanaadaa bisawtin rafiic cod buu kor u qaado wuxuu yidhi alaa yaa macshara man aamana bilisaani war kuwa carabka ka iimaanka iyo rumayntu carabka ka rumeeyey kuwa ilaahay carab ku rumeeyeyo oo walam yadkhul iimaanku uusan gelin qalbigoodo war muslimiinta ha dhibina war muslimiinta ha caayina war ha ceebaynina cawraadkoodana ha raaraacina markaasuu nabi sal slam qofka qof muslima ceebihiisa raacraaca asagana ilaah baa cawradiisa raacraaca haye xataa fii jawfi beytihi asagoo ku jira ayuu alla fadeexeeyaa waxaad ogaataa adigu ceeb ma leedahay mise malihid dadka ceebahooda ha raacraacin waxaa kugu soo socota adigana ceebahaagun in banaanka lasoo dhigo ma macsuum baa ta marka dadka ceebahooda raacraacays laa tadkur cayba mri'in war qof ceebtiisa ha raacraacin oo ha sheegin adiguna waxaa weeyaan banaanka ayaa lagu soo dhigaya laa takhtaabu lmuslimiin walaa cawraadkoodana ha raacraacina bu nabi sal slam waxyaabaha qofka dadka xanta uu la kulmo waxaa ka mid a qabriga ayaa lagu cadaabaa nabiga ayaa soo maray sal slam kama fi xadيث بن cabاs وغayri ayaa nabigu wuxuu soo ray bqabrayn faqaala inahuma la yucadabaani wma yucadabaani fi kabiir labadani qabriga hadda ku jira waa lagu cadaabaya laakiin markii la eego loo fiiriyo aragtidooda markay adduunyada joogeen wixii dembigan lagu cadaabaya wax weyn oo mayna arkaynin markaasuu nabigu fasiray ama axaduhuma fakana laa yastabriu min bowli ama alaakhar fakana muxuu nabi sal slam وama alaakhar فكان يمشي بالنميمة dadka ayuu isku diri jiray idan ku bishaarayso bishaaro miya way dhici kartaa quraanka fabashirhum bi'adabin alim ilahi baa yiri qaala soo ayagu bishaara laga cabiray marka haduu qof ku farxayo maanta qof walba uu xamanayo ogow markaad wax xamanayso qabrigaaga xusuuso xadiidkan kale xanuunka badan ila eega nabiga markii la dheelmiyay habeenkii lama urija bi marartu biqawmin lahum adfar min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya jibril qala haula alladhina yaakuluna luhum an-nas wa yaqa'una fi a'radihim habeenkii nabiga la dheelmiyay sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu waxa soo maray dad cidiya dhaadheer leh oo wajiyadooda halka kaga soo bilaabay ilaa laabahooda sa isu dilaacinaya waan la yaabay ficilka foosha xun waxaa idhi buu waa kuwama nabigu wuxuu yiri jibriil wuxuu yiri waa kuwa dadka hilibkooda cuna ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam waxaan ku soo aruurinayaa ayo ahibba sideen oga takhalusi karnaa ama aan oola dagaalami karnaa cudurkan khatarta ee dilaaga ee jeermiska ee bakteeriyada jirkeena ku faafay ee ummadda kala dilay ee reerihii isqabay dumiyey ee qabaa'ilkii isku diray taqwa allah horta inaan ilaahay ka cabsano subxaanahu wa tacaala aan ka xishoonno rabbigiina abuuray subxaanahu jala wacala waa kow labo inaan dhegaysanno aayaadka kuwan hadda akhriyaynay iyo axaadiidta waciidka ah ee ku soo arooray
halkaa libaax baa dad ku cunay haddii lagu yidhaahdo waddada ma maraysaa mise libaax aad looma garanayo waa la iloobay waddadan xoog haddaad u marto kamera ku rakiban hadda haddii ingiriiska waday ma xoog baad ugu wadaysaa mise tartiib maxaa tartiiba ugu wadaysaa soomaada cabsanin maxaad u malaynaysaa cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala lidalika alla wuxuu yidhi am yaxsabuuna ana laa nasmacu sirahum wanajwaahum bala warusuluna ladayhim yaktubuun buu alla yidhi subxaanahu jala wacala waa adilada tilmaamaysa istaxyuu min allahi xaqa alxayaa nabigaa yidhi war xishoodka ilaahay uu xaqa u leeyahay ka xishooda markaasay waxay dhi yaa rasuul allah inaa nastaxyi walilahi alxamd waanu xishoonnaa markaasuu yidhi arrinkaa ma sheegaye walaakin man istaxyaa min allahi xaqa alxayaa falyaxfad ira'sa wamaa xawa madaxa iyo waxa ku hareeraysan ha ilaaliyo waa labadii dhegood muusiga shayaaiinta aad ku dhegaysanayso iyo xanta indhaha iyo carabka saddexda ayaa ku yaala maalan walyaxfad ilbatna wamaa waca weelka caloosha iyo waxa ku hareeraysan waa caloosha xaaraamta ka ilaali farjigana zinada ka ilaali sidoo kale khasaarada uu qofku la kulmayo waa inuu xusuusto atadruuna man ilmuflis ma garanaysaan qofka caydha madow ah een waxba haysanin waxay dhaheen waa qofkaan lacag iyo haysanin wuxuu nabigu yidhi sal slam maya waa qof imaan doona maalinta qiyaama muxuu wataa bisalaatin wa zakaatin wa siyaamin waqad shatama hada وضرب هذا وأكل مال هذا فيؤخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فريت هذا حتى حسنات كده ما هذا ما حدا عيا أيجب أنت الدنبية ذو ذي لقصة قاضه أيا ضش أنت لقصة ربا ملائكة لها وجي أنت تجي دان نار تخطورة وزع مركز صلاة هذا أدو قيب الصلاة هذه قيب الصون كاغي قيب صدقة هذه قيب القرآن كذا أغريسي قيب السنن كاغي قيب مساجد كذا أسر سعوتي أجر كات كاشي بر والدين أجر كات كاشي وحادو قيب سادد آبادنا أبتهاي أو جنكو قليا حنت هذه جنكو قليان كم بشاريسا قبله حنت هذه جنكو قليان داد أظن عبت أما الصلاة هذه أود قيبي سي markay ka dhamaataba naar uu gelinaya nacuudu billah maca anna ahlu sunna wal jamaa i'tiqaasan yihiin qofku hadduu ahlu tawxiid yahay inuusan naarta ku waarayn laakiin anaga ma naarta kuma waarayabaad yaad macno ka dhiganaysaa laa ilaaha illa allah aan arrintaada iskaga ilaalino xasan baa wuxuu arkay an alxasan qiila lahu ana fulanan ikhtaabak nin baa ku xantay baa la yidhi markaad waxaan rabnaa balada hal qof oo inaga naga mid aho dhaqan geliya bal arrintaan rag dhaqan geliya baan ogahay anugu bal qisadan cajiibka ah nin baa ku xantay baa la yidhi yarxamka markaasuu wuxuu u diray nin buu u diray wuxuu u diray timir طبق دن او تمره دنبيل دن او تمره بو نينكي xantay u diray wuxuu yiri balagani annaka waxay soo gaadhay adigu inaad xasanaadkaagi qayb iga hadiisay hadiyan anagu u baxbar soo hadiina waxaan soo hadiina barfuunan hadiye isku dirnaa laakiin ogow marka aad qof xamanayso hadiyad u dirtay ogow wuxuu yiri waxay soo gaadhay inaad hadiyad qaali ah ii soo dirtay wabidan doonin hadda bal darsigan hadana wax kale ka faa'iideysanin bal markii qof baa ku xantay lagu yiraahdo intaad suuqa tagtood barfuun caraf badan soo gado inaad dhado khayr Allah ku siiyo ajirkaagii baad qayb iga siisay waxaana shaqaysanin baad iigu tatawucday walaalkayga runta anta wallahi walaalkayga runta waa adiga liana walaalkay ajirkiisa waxba igama siiyo maxalkaygu sugaa ama adi soo maaha waxaad i siisay maxay ajirkaagii baad qayb iga siisay muxuu sameeyay marka waxaan go'aansaday inaan أن فكافئهم حاهد إن أنكو أبال قدو وحان كو كان ألابتن إن أن أبال كسيو عذر دار أجر كان إسيسي حدي أن كو كان وايي وحو قلبه هيا دل يرى ما حد كده ذلك تازيدا ساسا يددك قيمها بدنا إيه سلف كآية هايين قفك إنو حصوصتو عيبيهيسة oo uusan ku mashquulin ceebaha qodobka waa qodob daruuri ah haddii aan doonayno inaan xanta iska ilaalino waxaad samaynaysaa ceebahaaga tirso ceebahaaga dib u fiiri hay ceebahaaga dib u fiiri meeqa ceebad baad leedahay meeqa ceebad baan leedahay ceebo badan baan leedahay
ديبو فيري عيبها هذا كوكما فيلو لكن هذا عيبها بني آدم ككم مشغوشو أذيقنا عيبت هذا أي كاغر صوناتاي وهذا وقاتا إن هذا هلاك سنتي آخر انت كوريسا أدوية معايا لأذيقنا عيبها قال راعي بقول عيبات بالله وحالة يابا إن تايقف كذاتك أو عيبها بدل هذا الموضوع يسينه إلهي كو قرنا ينا إلهي سبحانه وتعالى وكفضيحين يا وانا أحاديث مركا آل السومرين محاكو عاوين يا وحاكو عاوين يا مجالسة الصالحين dadka wanaagsan ina la fariisato oo aad iska ilaaliso ka fogaato bataalinta dadka ciyaal suuqinta ah dadka ilaahay ku dhaweyneen dadka aan salaada ku xusuusinayn dadka xumaanta ku hanuuninaya dadka mukhadiraadka ku baraya dhalinyaro hada doonaysan in arinta ka fogaataan dadka wanaagsan ee saalixiinta ah mathalul jalis as-salihi wa jalis as-suu ka hamil al-miski wa nafikh al-kir صاحبك وناكسن إيا صاحبك حن وحيلة تساليهين نين دكان برفونة قضا إيا نين كباها طرة ومحالي لذا إيكا بوفوف كسية أنا شغفي عنه وقاذا شغضا معها وحلق دلعين يا شغضا معها لكن هو شغضا وحي صوصا ريسو برفونة هداد قشو دكان برفونة صدح مدوي قفك إنا استقانان وهذه كسية وديع كرتا إنا الكئيب ستنا وديع كرتا انت اسكت تتجابسو إن هذا عفوا كسر بحضنا وصدق هذا ما يمد نقطة لكن بفوفت ده أكثر يسته أما درك بكاب جبنو واحد كسر الدولة يدرك جبي أما الدافي وحد قبتها صنبورو هندي صدق كوالني لبض الله واحد الله استعمالنا في رصدا وباعتبار ما يقول إليهما لبض قف ماشي كده بين دونان كان الدب على الشيء قرمونا ولا شيء جهنم وخطر يهوي كان يتجوني يعرف على شيء جنة أيوه أبالكيسو يهوي بركة صاحبكم أما واجنا أما والنار أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين وحنكسو قبينا يا بإذن الله تبارك وتعالى هدين للحمتم حال السمين ومحا كفاروا وداوذي التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون الندم إن أظفرت دحذا أتكقنينته صدح أن يقلع عن الذنب ذنبك إن أظفرت أتكقاده العزم على ألا يعود إليها إنه سندب أغن قنن إيا قفك أوحنتي إنه حلال ويديستور إعافي حولها ديئها إنه أعليو حنها ديئي عرض إنت أطو إنه ولا لو وحاسن كاشيغي إعفي إنه يلاد وقف إنتو نولي هدون انت ساماها علماء أقوال بكليهن إيشو كو عاي أما أكو أفلقا ديب وانتو نينك أطو عليه ما أستا هذا كورينا هبل وحكاقا شيئا بينا لانها انت سانا عيب أوفر نين وين الله يا بين شيئي وحنكون شيئي هبل وود انت ايه وحن كشيئي بي أحيد أنا بينا لا والمخراتيق اللي أقبلين وشيك داتك سلان لقورينا يأينا نمارك نقون كريم يا إسلام لقورنا إنا مركز نقول كري وشك أذنكم مخراتي كشنا يا وشك مخراتي ما قالوا وهي قفان بينك شيء أما أنا وحدة ننكاسي أنت كأوجي ننفي عنبوها صدقات كانوا أبدي إن شاء الله والله قاعد ترتير يا لك ولي خطر بينكم جرتا ما بنانتها يقفك إلا حنتو أو أحلى شيء حالات بالعلماء الشيئين للضرورة قاضية كمذا مثلا شيخنا قاضية وابا يهيبة مساد بفريعة هويني با أتمت وعيتني شيخو أضيق يبيلي مصي حنوي يدي متشوقي تعريف هيقور بركة دوا ونغطان ننكب حلقة شيء متشوق شيخو بيلي مصي ويكو إيمانا عاويو والله الدريسكي صوق اللي وانكوه أيو سبريد بالربا صدح شيخو محاسم إياه ninkii baa u yimi wuxuu yiri sheekhu islaantaydu aroos walba oo magaalada ka dhaca way taagan tahay صح aroos kasta oo magaalada ka islaantu waxa sheegay martan islaantaydu aroos kasta oo magaalada ka dhaca way taagan tahay haddaan wax yar iskhilaafna boolis bay igu yeedhaa cudurradena wax ka taabanay martan sheekhi marka uu dhageysanayaa uu maqlayaa kadibna maxay wuxuu leeyahay talada iyo talada ama ninkii baan maqlay waxa kada
ولذلك أبو سفيان قبل اللي هند بنت عتبة أي النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان باقي وحيت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وحيت وبخيل ننكيبه وبخيل وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم لعقت ميشو ديغانا قانايو بيلكو نصيا نغما في إلا إن الحوغا سو تشيب سيبا موين حوغا يربان كسو سيبا أسوأ أوغين نبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بنانتا نينكا نوعا إلا حضوي نينكا نوع عاسا ميشو وحديغا إن الله دبا مروي بنانتا نينكا قعنتا أدك رقو أوغادا رجو أن أجانو نينك جعنت أضجو حق يقول هذا إلا وحده ما أنا عرون كرتت ما أنا دي كرت محل إيده ومري لكن بابك يندمر كمجال سنين ودهين وحل غيرك كف المحون غنكرة كمان دايرة الدهين بدشوا كرتك بدشوا كم بدشوا ما معناه إنه نينكو وقعد أدقي هاي مركز ضوابط بيوبا أنت وحلا قال الله يا وابيلك يا نورش يا وحي المهم حديثكم ما شيقينا النبي صلى الله عليه وسلم وحكى نوجر الاستعانة على تغيير المنكر قف منكر بالربا قف إلا قريبه أنا أقول لكن قف كإمام مقله أما إمام مقليه أما واقف أنا قرابة إذا وركيجا مقلين تصال عن شيخ أنو إيمانيا عن لها ننكا هيب اللي هذا واسدا هذه قاعد اسكفي عن تهيني أريد مو شيء كرتا أسقون شوقي ما وحكي شيء زمرت لكن لأجل إن أسقى لتوسيو موجودان تي هرنا لأجل إن ريرو حقاقان بهيت سما أيضنا تانا ويدعي كرتا سيدو كرا وحاكرا أيضنا دعي كرا قفك الدقيد لوغا دقا يا مسلمين تمنكر كي سو بطي إن لوغا دقو أي صورة قلا نبا قبر شو كان صدي أما منكر كمان كون مثالية نبا نبي مكسو بحبركاس يقولي بئس ابن العشير قيس نين كدش نين رير كدش نين كاسو أقول ليته markuu yimaadeen nabigu waa u qoslay عليه السلام hooyada Aisha way yaabtay oo waxay tiri rasuulka Ilaahay hadalkaana waad lahayd haddana waad u qosashay waa maxay xir Aisha nin waxa ugu liita ninka lagu karaameeyo ittiqaa sharrihi dadka waxa jira qayb markay kugu soo baxaan hadaad u qoslin sharkiisu ku soo gaaray Soomaali bini aadamku markaa markuu soo baxadi a'uudu billahi min darjim waad u qoslaysaa waad u qaadimaysaa inuu sharkiisu ku dhaafo markuu baxana waxa a'uudu billahi min ash-shaytaan تامد كلمة كلام حنت كوبنا وحوي نبى جبرتني وفائدة في عنوي الله صعد تلبد معنا وضعنا معنا وحمركو تبس ما وكوكا تلعنا عنوية ويل كبار جبر إنه شو كان صدق اللي ينادي الشيخ مرضى محاضرين يسوع ما تشعل كانوا وش كيس عبد القادر عم بيكون حرة تقول لكن ما خلطناه هنا عبد القادر أدرى ما هين عبد القادر ده تشعل كذا سوى كوي هذا وقت أساس ما ملي مغلي ياس أوكي وحارب مركا إن عنده وجبده إن شاء الله أنت أسكفتن وحارب إن عنده نين با جبر شو كان سنة أما جبر باويل أيوة شو كان سنة مركا وحلو ما ننسى الشيخ إبراهيم شيخه ويل كاس ما تقارنا كاسو الشيخ وحريه ها وانا قانا نين كاسو معها وانين في عن وانين ونكسن وإل العبادة لكن وانين طبيعة هذا وفي صديق ninka dadla dhaqan male gabar sheekho gabadha ma taqaana ha waa gabar wanaagsan waa gabar fiican laakiin asturka kuma fiicna kalimadan asturka kuma fiicna ma amaan ba mise wax ka sheeg laakiin macnaheedu waa maxay waxa weeyaan ii keen gabadhaasi diinteedii iyo maartay marka dad ku qaadanayso ku qaado way sama marka tusaalo waa dusal okay ahayn raali ha noqdeen culimada sixi doonta laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa u timid gabadh وفاطمة بنت قيس بالله وقبرها اسكا مقعابه فاطمة بنت قيس وقبر تاريخ دير لوي فاطمة بنت قيس نبي يؤتي صلى الله عليه وسلم ايضا لا تشانيسا waxay tiri rasuulka ilaahayo saddex nin ba ila sheekaysatay waxa kamida Muawiya waxa kamida Abu Jahm waxa kamida Usama bin Zayd nabiga sallallahu alayhi wasallam markay guursadaa bay ilaahay waqtahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam amma Muawiya farajul faqir la maal lahu معاوية وحبا اسكوا فرتو كاهو دوان وأما أبو الجهم فضراب للنساء والدلاء دمركو إبر كدقا
ولكن أسامة بن زيد أسامة بن زيد وحنفرتك وفي قيا نينك على هذا محي أسامة إن شاء الله تعالى ما لها إن أنت كدايو بس كفي عن هاي هذا وقت قدر سر الله جزاكم الله خير يا رب كان أنا على طول إلهي سبحانه وتعالى كأبا المريو شيخنا شيخ أبو طلحة كلمة داس المحاضرات دير قروح ذا بدن وناكسن إلهي سبحانه وتعالى ميزان حسناتها ودرو ما تبكى ولا تاغيه هي حسابك اللو تاغيه اللهم آمين يا رب إنك أنا نحيي فينا الآمال نزرع قيام